Assalaamu calaykum asxaabta qiimaha badan. Waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan oo isku noqod wanaagsan. Raalli iga ahaada muddadii dheer ee aan idinka maqnaa. Laakiin maanta waxaan idiin soo wadaa anime aad u xiiso badan. Aan bilowno. Wiilkan waxaa la yidhaahdaa Light, waa arday dugsiga sare dhigta. Waa arday aad u caqli badan oo la filayo inuu noqdo ninka ugu sareeya fasalka. Aabihiis waa taliyaha booliiska Jabaan. Maalin dugsiga dhexdiisa ah ayuu fadhiyey isagoo riyoonaya, markaas ayuu arkay buug cajiib ah oo dhulka yaal oo lagu qoray Death Note. Light wuu yaabay wuxuuna qaaday buugga si uu u eego waxa ku qoran. Markuu furay buugga wuxuu arkay qoraal odhanaya: qof kasta oo magaciisa lagu qoro buuggan wuu dhimanayaa isla markiiba. Dabcan Light ma rumaysan oo wuxuu u maleeyay in la isku maaweelinayo. Laakiin buuggu wuxuu had iyo jeer ku soo xasuusinayay isagoo wax baranaya, markaas ayuu go'aansaday inuu gurigiisa la tago. Habeenkii markuu yimid wuxuu mar kale furay buugga si uu u akhriyo xeerarka uu leeyahay. Xeerarka waxaa ka mid ahaa: waa in magac buuxa la qoro si uu qofka u dhinto. Waa in aad ogtahay wejigiisa si khalad loo gelin qof kale oo magac la mid ah. Waxa kale oo la qori karaa sababta iyo waqtiga dhimashada. Haddii sababta aan la qorin, qofka wuxuu u dhimanayaa wadne istaag 40 ilbiriqsi gudahood. Markii hore wuxuu is yiri waxaas waa been iyo sheeko madhan. Laakiin dabadeed wuxuu is weydiiyey, haddii uu run yahay, aniga dambiile noqonaya. Isla markaas ayuu maqalay war TV-ga oo sheegaya in dambiile la haysto, carruurna la afduubtay goob xanaanada ah, booliiskuna aysan waxba qaban karin. TV-ga waxaa lagu soo bandhigay magaca iyo sawirka dambiilaha. Light wuxuu is yiri, aan tijaabiyo buuggan, maxaa dhici kara? Wuxuu qoray magaca dambiilaha wuxuuna sugaa in 40 ilbiriqsi ay dhaafaan. Markii uu doonayay inuu damiyo TV-ga, wardhameedka ayaa sheegay in carruurtii la badbaadiyey, dambiilihuna uu ku dhintay wadne istaag. Light wuu argagaxay oo ma rumaysan, wuxuu ogaaday in buuggu dhab yahay. Laakiin wuu isku qanciyey, maya, waa isku dhac, ma ahan run. Habeenkaas wuxuu buugga la tegay fasalka fiidkii oo uu waxbarasho ku lahaa. Markuu joogay, ardaydii kale waxay ku wareersanayeen oo jirdilayeen wiil daciif ah. Light wuxuu ku fikiray inuu ku tijaabiyo buugga midkood, balse wuxuu is yiri, maya, qof aan aqaan ma dili karo, dadka waa arki doonaan. Markaas ayuu ka baxay dugsiga. Markuu wadada marayay wuxuu arkay koox wiilal ah oo gabar ku dhibaya wadada. Light wuxuu qoray magaca mid ka mid ah raggaas. Daqiiqad kadib gabadhii way carartay, ninkii dambena wuxuu u orday isagoo daba socda, laakiin gaariga ayaa ku dhacay. Halkaas ayuu ku dhintay. Light wuu yaabay, buuggu si dhab ah ayuu u shaqeeyaa. Markii uu guriga yimid, hooyadii waxay weydiisay, imtixaanka sidee u baxay? Light su'aasha ma jawaabin, wuxuuna toos ugu baxay qolka. Wuxuu fadhiistay isagoo faraxsan, markaas ayuu furay buugga si uu mar kale u eego. Laakiin markuu madaxa kor u qaaday, wuxuu arkay makhluuq cabsi badan oo hortiisa taagan. Light wuu argagaxay wuxuuna qabsaday naftiisa isagoo leh, ma kaa baqayaa? Maya, waan ku sugayay. Yaa tahay adiga oo maxaad adduunkeena ku samaynaysaa? Makhluuqaas ayaa ugu jawaabay, magacaygu waa Ryuk, waxaan ahay Shinigami, ruux qadhaadh oo qoraya kuwa dhimanaya. Aniga buuggan dunidaada ku tuuray. Ryuk wuxuu sharaxay in Shinigami-yadu ay leeyihiin dunidooda gaar ah, meel aad u caajis badan oo ay keliya ku qoraan magacyada dadka dhimanaya. Wuxuu yiri milkiilihii buuggan wuxuu rabay inuu madadaasho, sidaas darteed ayuu u daadiyey. Light isagoo caqli badan wuxuu fahmay in wax walba ay qiime leeyihiin. Markaas ayuu weydiiyey Ryuk, maxay tahay qiimaha ama khasaaraha buuggan? Ryuk wuxuu ugu jawaabay, ma jirto wax qiimo ah. Haddii aadan rabin sii qof kale, maskaxdana waxaa laga tirtirayaa xusuusta buugga. Light wuxuu yiri, markaas waa wax qiimo badan. Ryuk wuxuu qoslay wuxuuna yiri, qiimaha keliya waa cabsi uu ninkii buugga hayay la noolaan doono. Xilligaas hooyadii ayaa albaabka garaacday. Ryuk wuxuu ku yiri, si caadi ah u fur, aniga ma arki karto. Light wuxuu ogaaday in keliya isaga uu arki karo oo maqlo Ryuk, dadka kalena aysan arki karin. Ryuk wuxuu sharxay in qof kasta oo buugga haya uu xiriir toos ah la yeesho Shinigami-ga leh buuggaas. Light ayaa weydiiyey, maxaad aniga iigu dooratay? Ryuk wuxuu ku yiri, ma dooran, si kedis ah ayaan u daadiyey, adiguna waad heshay. Wuxuu ku daray, haddii aadan rabin sii qof kale oo la yiraahdo Light. Light wuxuu yiri, maya, waxaan rabaa inaan wax badan ku sameeyo buuggan. Wuxuu bilaabay inuu ka fikiro sida uu u nadiifin lahaa adduunka dambiyada iyo dambiilayaasha. Wuxuu yiri, dunidani waxaa maamula dambiilayaal, mar walba dambiyo cusub ayaa soo kordha. Kadib markii Light bilaabay inuu qorqorayo magacyada dambiilayaasha, muddo kooban gudahood waxaa dhacay in ka badan 50 dhimasho oo wadne istaag ah. Dhammaan dadka dhintay waxay ahaayeen dambiilayaal iyo tuhmanayaal dambiyo waaweyn galay. Arrintan waxay si degdeg ah u soo jiidatay dareenka Interpol, hay'adda booliiska caalamiga ah. Dood adag ayaa ka dhex bilaabatay madaxda sare ee Interpol. Qaar waxay yiraahdeen dambiilayaashaas waa la xukumi lahaa si kastaba, marka waa caadi haddii ay dhintaan. Laakiin inta badan saraakiishii kale way ka soo horjeedeen, waxayna yiraahdeen sharci iyo cadaalad waa in la ilaaliyaa, qof sharciga ka baxsana cidna ma dili karto si uu isagu u xukumo. Doodii way kulushay, waxaana la isla qaatay hal qodob. Dhimashadani ma aha kuwa caadi ah, waa qof si ula kac ah u dilaya dadkaas. Si kastaba ha ahaatee, caddayn muuqata ma jirin, maxaa yeelay dhimasho kasta waxay u muuqatay wadne istaag dabiici ah. Interpol waxay ku adkaatay in la helo wax raad ah ama qof laga shakiyo. Ugu dambayn waxay go'aansadeen inay caawimaad weydiistaan dambibaaraha ugu caansan dunida, ninka keliya ee la yaqaan inuu xalliyo kiis kasta oo uu qaado. Laakiin mushkiladdu waxay ahayd, qofna ma yaqaan cidda uu yahay ninkaas, mana la garanayo wejigiisa. In la helo waxay u eg tahay wax aan suuragal ahayn, ilaa qof si lama filaan ah u soo muuqday.
ninka la yimid warbixinta waxaa la yidhaahdaa watari isagaa keliya xiriir la leh dembibaaraha qarsoon ee lagu magacaabo el watari wuxuu u sheegay interpol in el uu muddo shaqaynayay oo uu diyaar u yahay inuu baaritaanka bilaabo qolka waxaa ka buuxay xiisad iyo aamusaad qof walba wuu og yahay in kiiskani yahay mid halis ah el wuxuu dalbaday in interpol iyo dhammaan hay-adaha kale ee amniga ay iska kaashadaan baaritaanka wuxuu si gaar ah uga codsaday booliiska jabaan inay taageero buuxda siiyaan maadaama kiisasku badankood ka dhacayeen halkaas shirkii markii uu dhammaaday qof walba wuu argagaxay dunidu waxay ogaatay in qof qarsoon uu dilayo dembiilayaasha dhanka kale light wuxuu gurigiisa fadhiyey isagoo tv-ga ka daawanaya doodaha ku saabsan qofkaas qarsoon dadku waxay bilaabeen inay u bixiyaan magaca kira oo micnaheedu yahay killer dila dad badan ayaa bilaabay inay rumaystaan in kira uu yahay boqorka cadaaladda nadiifinaya dunida dembiyada xitaa waxaa la sameeyey website lagu magacaabo kira tesavior halkaas oo dadku fariimo dhiirigelin ah ugu diraan dembiilayaashu way yaraadeen dadka shacabkuna waxay dareemeen nabad light wuu qoslay oo ku farxay qorshihiisii wuxuu u socday sidii uu rabay laakiin farxaddiisu ma sii jirin muddo dheer waxaa mar qura tv-ga laga sii daayay war toos ah oo interpol ka yimid shaashada waxaa ka soo muuqday nin isku sheegay inuu yahay ninka keliya ee awood u leh inuu dhaqaajiyo booliiska caalamka ninkii la odhan jiray el wuxuu hadlay isagoo kalsooni leh wuxuuna yidhi waxa dhacay waa dembi weyn oo dunida taariikhdeeda aan hore loo arag anigaa qaban doona ninkan la yidhaahdo kira wuxuu si toos ah ula hadlay kira isagoo ku leh cadaaladda aad sheeganayso ma aha cadaalad waa shar iyo kibir el wuu qoslay si cay ah taas oo ka caraysiisay light wuu xanaaqay wuxuuna yidhi waxaan rabay inaan ku maaweeliyo laakiin hadda waa intaas nabadeey wuxuu qoray magaca ninka ku jira tv-ga isagoo neceb 40 ilbiriqsi kadib ninkii shaashada ku jiray wuu dhintay wadna istaag light wuu farxay laakiin si lama filaan ah shaashadu way beddeshay ninkii haddana wuu soo muuqday mar kale ninkii shaashada ku jiray wuxuu yidhi ninkii dhintay ma aniga ahayn wuxuu ahaa dembiile xukun dil sugaya adigana waxaan kuu sheegayaa run ahaantii hadda waan ogahay waxaad joogto gudaha jabaan gobolka kanto light wuu argagaxay wuxuuna isweydiiyey sida uu ogaaday halka uu joogo el wuxuu sii watay hadalkiisa dembiilihii ugu horreeyey ee aad dishay wuxuu ahaa afduube carruurta ah kiiskaasna waxaa daawaday dhammaan jabaan taas waxay caddaynaysaa inaad ku suganayd dalka gudihiisa wuxuu sharaxay in barnaamijkii tv-ga lagu baahiyey gobollada kala duwan ee jabaan wakhtiyo kala duwan taas oo u sahashay inuu garto goobta uu kiira ku sugan yahay el wuxuu yidhi hadda waa la ogaaday kiira wuxuu ku sugan yahay jabaan riyuug makhluuqa buugga iska leh wuu qoslay wuxuuna ku yidhi light waa xaalad xiiso leh haatan waxay kuu bilaaban doontaa dagaalka dhabta ah dhammaan dunida waxay ogaatay in dagaal cusub uu bilowday dagaal u dhexeeya light iyo el kiiska wuxuu isu beddelay dagaal caqli iyo xeelad ku dhisan midkoodna ma doonayo inuu guuldaraysto el wuxuu amar ku bixiyey in la baaro saacadaha iyo maalmaha ay dhimashadu dhacaan kadib markii xogta la soo ururiyey waxaa la ogaaday in inta badan dhimashooyinku dhacaan 4 galabnimo ilaa 7 fiidnimo gaar ahaan maalmaha fasaxa oo dhan la dilayo el wuxuu yidhi taasi waxay caddayn u tahay in kiira yahay arday iskuul dhigta shirkii ayaa lasoo afjaray qof walbana gurigiisu la laabtay isagoo argagaxsan aabbaha light oo ah taliyaha booliiska jabaan wuxuu guriga yimid fiidkii isagoo daalan kadib baaritaano badan qoyskiisu way soo dhoweeyeen waxay wada qadeen cunto dabadeedna wuxuu seexday lightse ma ahan mid caajis ah maskaxdiisu weli way shaqaynaysay habeenkaas wuxuu furtay kombuyuutarka aabbihiis si uu u hubiyo warbixinta cusub ee ku saabsan kiira markii light hubiyey xogta aabbihiis ee kombuyuutarka ku jirta wuxuu ogaaday in booliisku rumaysan yihiin in kiira uu yahay arday wuxuu fikiray haddii ay sidaas u malaynayaan waa inaan qorshe cusub sameeyaa si aan u khaldo wuxuu go'aansaday inuu kala dhigo wakhtiga uu dadka dilo si aan loo arkin nidaam joogto ah wuxuu qoray magacyada dembiilayaasha saacadaha kala duwan maalintii oo dhan si ay u muuqato in kiira aanu arday ahayn tani waxay ahayd xeelad si caqli leh u dhisan oo lagu wareeriyo booliiska booliisku waxay bilaabeen inay isqabtaan oo midba midka kale ka shakiyo sababtoo ah xogtu way isburinaysay el wuxuu dareemay in ninkii uu raadinayay uu yahay qof aad u maskax badan el wuxuu ka codsaday fbida inay gacan ka geystaan dabagalka booliiska jabaan iyo qoysaskooda wuxuu yidhi waxaa suuragal ah in kiira uu ka mid yahay booliiska ama qoyska midkood sidaas darteed fbidu waxay bilaabeen inay la socdaan qoys kasta oo booliiska jabaan ah dhinaca kale light wuu dareemay in lagu daba jiro riyuug ayaa ku yidhi light fejignow waxaa jirta qof ku daba socda light wuu qoslay wuxuuna yidhi waan ogahay waa qayb ka mid ah ciyaarta wuxuu go'aansaday inuu ka takhaluso cid kasta oo dabagal ku haysa si qarsoodi ah riyuug ayaa markaas u sheegay sir weyn oo ku saabsan shinigamiga indhaha shinigami waxay awood u leeyihiin inay arkaan magaca iyo dada qof kasta marka la eego wejigiisa wuxuu yidhi sidaas ayaanu dadka u dilnaa annagoo aanan aqoon magacyadooda riyuug wuxuu u sheegay light in uu heli karo awooddaas haddii uu sameeyo heshiis gaar ah heshiiskaas wuxuu ahaa haddii light doonayo inuu helo indhaha shinigami noloshiisa waxaa laga jarayaa kala bar tusaale haddii uu leeyahay 50 sano wuxuu ku harayaa 25 sano oo keliya light wuu fajacay wuxuuna yidhi markaas waxaan dili karaa qof kasta xitaa kii daba socda laakiin markuu ka fikiray wuxuu go'aansaday inuusan noloshiisa u dhimin awooddaas wuxuu yidhi maya waxaan rabaa inaan nolosha dheer ku gaaro riyadayda inaan noqdo boqorka dunida light wuxuu bilaabay inuu qorshe cusub sameeyo si uu fbida u khiyaaneeyo isagoo aan adeegsan indhaha shinigami wuxuu helay dembiile baxsad ah oo bangi dhacay wuxuuna magaciisa ku qoray buugga si gaar ah oo faahfaahsan qorshihiisu wuxuu ahaa in dembiilahaas uu soo baxo wakhtiga saxda ah oo uu sameeyo fal qalalaase ah halka uu light joogo
Light wuxuu u diyaariyey in Fbida la socota ay sidoo kale goobta joogaan si ay u arkaan dhacdada. Maalintaas wuxuu baxay isagoo la socda gabar uu jaamacad la dhigto. Waxay galeen baska waxaana daqiiqad kadib baska soo fuulay ninkii dambiilaha ahaa ee Light qoray magaciisa. Ninkii wuxuu bilaabay inuu hanjabo isagoo qoriga la soo baxay. Light wuxuu u qoray gabadhii warqad yaryar oo uu ku yidhi ha cabsan aabbahay waa taliyaha booliiska waxaan ogahay sida loo joojiyo. Ninkii Fbida ahaa ee la socday baska ayaa isku dayay inuu dejiyo xaaladda. Light si ula kac ah ayuu uga shakiyey Fbida wuxuuna ku yidhi sideen ku ogaan karaa inaadan adigana la shaqayn dambiilaha. Si uu u tuso inuu daacad yahay Fbida ayaa tusay aqoonsigiisa. Light markaas wuu ogaaday magaca dhabta ah ee Fbida wuxuuna maskaxdiisa ka diyaarsaday qorshe kale. Light wuxuu iska dhigay inuu shay daadiyey ninkii dambiilaha ahna wuu arkay warqaddii uu daadiyey. Warqaddaas waxaa laga jaray bog ka mid ah Death Note-ka. Markuu dambiilaha arkay warqadda buuggu wuxuu bilaabay inuu saameeyo maskaxdiisa. Ninkii dambiilaha ahaa wuu waashay wuxuuna bilaabay inuu rasaas rido isagoo indhala ah. Dadkii baska saarnaa way qayliyeen baska wuu istaagay ninkii dambena gaariga ayaa ku dhacay wuu dhintay. Qorshihii Light si quman ayuu u shaqeeyey. Light wuxuu helay magaca dhabta ah ee Fbida ee dabagalka ku hayay. Wuxuu is yidhi hadda ma dilayo si degdeg ah waa inaan hubiyaa in ciddii kale aysan iga shakiyin. Maalmo kadib Light wuxuu daba socday Fbida isagoo qorshe kale wado. Habeenkii markuu isdilay Fbida wuxuu u sheegay ha fiirin gadaal haddii aad fiiriso waad dhimanaysaa. Aniga ah Kira. Ninkii Fbida ahaa wuu argagaxay Lightna wuxuu ugu hanjabay in haddii uu isku dayo inuu baxsado qoyskiisuna uu halis ku jiro. Kadibna wuxuu siiyey fayl uu ku qoray magacyada Fbida kale ee la shaqaysa. Light wuxuu amray ninkii inuu magacyadaas dhammaystiro si uu isaga laftiisa ugu qoro buugga. Markuu dhameeyey Light wuxuu u sheegay inuu baxo balse markuu ka baxay tareenka wadnihiisa ayaa istaagay. Dhammaan Fbidii kale ee la shaqaysay ninkaasna waxay ku dhinteen si la mid ah. Kirina wuxuu gaaray laba ujeedo. Wuxuu dilay Fbidii isaga la socotay. Wuxuuna kala diray kalsoonidii booliiska iyo Fbida. Booliiska Japan waxay bilaabeen inay midba midka kale ka shakiyaan. Kadib markii Fbidii la dilay wararku si degdeg ah ayay ugu fidiyeen Japan iyo dunida inteeda kale. Booliiska Japan waxay ogaadeen in dadka Fbida ah ay dhammaantood la socdeen booliiska Japan ka hor inta aysan dhiman. Taasi waxay dhalisay kalsooni darro weyn oo dhex gashay saraakiisha. Dhanka kale Light wuxuu si qoto dheer ugu fikirayay sida uu uga takhalusi lahaa qof kasta oo xog buuxda haysta. Maalin ayuu tegay saldhigga booliiska si uu arko aabihiis. Markuu gudaha galay wuxuu arkay haweeney la hadlaysa sarkaal waxayna ku leedahay waxaan hayaa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan Kira. Markuu maqalay magaca Kira Light si dhaqso ah ayuu u soo dhaqaaqay isagoo iska dhigaya inuu rabay inuu la hadlo aabihiis. Wuxuu ku yidhi si degan anigu waxaan ahay wiilka taliyaha haddii aad xog leedahay aniga ii sheeg waan gaarsiin doonaa. Haweeneydii waxay aamintay Light waxayna u sheegtay inay rabto meel ammaan ah oo ay uga waranto. Markaas ayuu Light kula baxay banaanka waxayna bilaabeen inay socod ku wada hadlaan. Intii ay socdeen Light wuxuu ogaaday in haweeneydani ay ahayd xaaskii Fbida uu hore u dilay waxaana lagu magacaabay Raye. Haweeneydii waxay u sheegtay in ninkeeda Raye Benbur uu geeriyooday xaalad shaki leh kadibna ay go'aansatay inay kiiska sii baaro. Waxay Light u sheegtay in ninkeeda uu la socday arday booliiska taliyihiisa ah maalintii uu dhacay shilka baska. Markaas ayuu Light fahmay in haweeneydan haddii ay run sheegto ay keeni karto caddayn toos ah oo isaga ka shifaysa. Light wuxuu maskaxdiisa ku bilaabay qorshe degdeg ah si uu uga takhaluso. Wuxuu warqad buuggiisa ah jeebka kala soo bixiyey isagoo iska dhigaya inuu wax qorayo oo qoraal samaynayo. Xaqiiqdii wuxuu qorayay magaca haweeneyda laakiin markii 40 ilbiriqsi la sugay waxba ma dhicin. Light wuu yaabay wuxuuna garwaaqsaday in haweeneydani aysan u sheegin magaceeda dhabta ah. Wuxuu is yidhi way caqli badan tahay magaceeda dhabta ah way qarinaysaa. Light wuxuu go'aansaday inuu sii hadlo si uu ogaado magaceeda saxda ah. Intii ay socdeen haweeneydii waxay sheegtay in ay horay uga mid ahayd Fbida ayna ka baxday shaqada kadib geerida ninkeeda. Light wuxuu is yidhi markaas way sahlan tahay in lagu qanciyo in la soo shaqaalaysiiyo. Wuxuu ku yidhi waxaan u malaynayaa inaad tahay qof geesi ah. Boolisku waxay doonayaan dad sidaada oo kale ah. Maxaad uga mid noqon weyday kooxda baarista Kira? Haweeneydii way la yaabtay soo jeedintaas waxayna tustay aqoonsigeeda si ay u caddayso cidda ay tahay. Magaceeda waxaa ku qornaa Naomi Misora. Isla markiiba Light wuxuu qoray magaceeda buuggiisa Naomi Misora. Wuxuu u dhammaystiray qoraalka si dabiici ah isagoo leh waxaan keliya qorayaa macluumaadkaaga. Markii 40 ilbiriqsi ay dhaafeen Naomi way istaagtay wejigeeduna wuu bedelay. Light ayaa ku yidhi si qabow aniga ah Kira. Naomi Misora waxay indhaha ku qabatay isaga waxayna dareentay naxdin iyo murugo. Waxay ku dhacday dhulka waana dhimatay wadna istaag. Warka geerideeda si degdeg ah ayuu ugu fiday booliiska laakiin cidna ma garanayn sababta ay isdishay. Dhab ahaantii Light ayaa dilay iyadoo aan qofna ka shakin. Ryuk wuxuu qoslay oo yidhi adigu waa maskaxdii ugu khiyaanada badnayd ee aan arkay. Light wuxuu ku jawaabay isagoo isleh tani waa cadaalad qof walba oo iga hor yimaada waa inuu dhintaa. Kadib geeridii Naomi booliiska iyo Fbida waxay bilaabeen inay shakiyaan in Kira uu u dhow yahay booliiska laftiisa. El wuxuu sameeyey qorshe cusub wuxuu amray in la rakibo kaamirooyin iyo qalab dhagaysi guryo badan oo saraakiisha booliiska ah. Wuxuu si gaar ah u dalbaday in la kormeero aabbaha Light iyo qoyskiisa sababtoo ah waxay ahaayeen kuwa ugu dhow kiisaska Fbida. Maalintii dambe markuu Light guriga yimid wuxuu dareemay in wax aan caadi ahayn ay jiraan. Markuu albaabka furayay wuu arkay in gacanta albaabka kor loo taagay si qaldan calaamad uu hore u yaqaanay. Wuxuu garwaaqsaday in qof uu guriga soo galay.
Ryuk ayaa u sheegay Light waxa suurtagal ah in ay kaamirooyin iyo qalab dhegaysi ku rakibeen guriga. Light wuu fahmay in hadda la kormeero wuxuuna Ryuk ka codsaday inuu guri dhan si qarsoodi ah u baadho. Ryuk wuxuu aqbalay balse wuxuu yidhi hal shardi waxaad ii keentaa tufaaxyo badan. Ryuk wuu duulay oo wuxuu bilaabay inuu baaro guriga oo dhan. Markuu soo noqday wuxuu sheegay in guriga la dhigay 64 kaamiro meel kasta oo guri ah. Light wuu qoslay isagoo yidhi wuxuu u malaynayaa inaan ka cabsan doono laakiin wuu qaldan yahay. Si aan looga shakiyin wuxuu qorsheeyay inuu sii dilo dambiilayaasha isagoo iska dhigaya arday wax baranaya. Wuxuu Twiyar ku qariyay gudaha bac chips ah si uu u daawado wararka dambiilayaasha isagoo aan qofna dareemin. Isagoo daawanaya wuxuu sii waday qorista magacyada dambiilayaasha si dadka u maleeyaan in Kira aanu la socon kaamirooyinka. Booliisku waxay u maleeyeen in qorshahoodii fashilmay, kaamirooyinkiina waxba ma tarin. Light wuxuu mar kale ahaa mid hor ah wuxuuna ku faraxay in uu jebiyey xeeladii kadib markii qorshihii kaamirooyinka uu fashilmay. Booliisku waxay fahmeen in Kira uu ka caqli badan yahay sidii ay filayeen. Wuxuu go'aansaday inuu si toos ah u baaro qofka ugu shaki badan, taas oo ahayd Light. Light waqtigaas wuxuu diiradda saarayay imtixaanadiisa jaamacadda. Wuxuu dareemay in indho ay isaga ku maqan yihiin balse wuu iska dhigay inuu aan waxba ogeyn. Maalinta imtixaanka ayaa timid, Light wuxuu fariistay kursigiisa isagoo degan. Daqiiqada kadib wuxuu dareemay in qof gadaashiisa si joogto ah u fiirinayo. Qofkaas gadaashiisa fadhiyay wuxuu ahaa ninkii ugu sirta badnaa laftiisa. Wuxuu si toos ah ula socday Light isagoo doonaya inuu arko fal kasta oo uu sameeyo. Kadib imtixaanka, natiijooyinka ayaa soo baxay. Light wuxuu galay kaalinta koowaad. Laakiin waxaa la yaab noqotay in arday kale oo cusub uu sidoo kale helay dhibcaha ugu sarreeya isla heerka Light. Magaca ardayga cusub wuxuu ahaa Hideki Ryuga, magacaas oo ah midka fanaanka caanka ah ee Japan. Light wuu yaabay, yaa isticmaala magaca fanaanka. Markii xafladii abaalmarinta la qabtay, labadoodii arday ayaa lagu casuumay inay khudbadeeyaan. Light markuu kor u kacay, ninkii kale ayaa u yimid isagoo u fidiyey gacanta. Ninkii wuxuu yidhi si degan, farxad ayay ii tahay inaan ku barto Light Yagami. Light wuu qoslay balse gudaha maskaxdiisa wuxuu ku fakaray, magacaan waa been. Ninkan waa midka iga shakiya. Kadib ninkii kale wuxuu si hoose ugu yidhi, aniga waxaan ahay Light wuu dhoola caddeeyey balse qalbigiisu wuu gariiray. Wuxuu is yidhi, ninkan caqligiisa lama yaraysan karo. Hadda wuu itijaabinayaa. Isaguna wuxuu eegayay wejiga Light isagoo raadinaya calaamad yar oo muujinaysa cabsi ama caddayn. Light si xirfad leh ayuu is u maamulay, wuu qoslay wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu la kulmo qof caan ah. Intaa kadib labadoodii waxay noqdeen saaxiibo jaamacadeed oo si joogto ah u wada socda, balse mid walba wuxuu kale ka shaki qabaa. Wuxuu go'aansaday inuu Light ku dhowaanayo si uu ogaado sirtiisa. Wuxuu ku yidhi, waxaan rabaa inaan ku casuumo xarunta baarista Kira si aad uga qayb qaadato. Abbaha booliis buu yahay, markaa waxaad noqon kartaa caawiye qiimo leh. Light wuu aqbalay inkastoo uu ogaa in tani ay halis tahay. Inta lagu guda jiray muddadaas, Light wuu qorsheeyey in haddii uu fursad helo, uu meesha ka saaro Si lama filaan ah ayaa warka ugu yimid, aabbihiis waxaa soo maray wadne istaag. Light iyo qoyskiisa waxay ku carareen isbitaalka. Aabbihii wuxuu la seexday sariirta isagoo daalan wuxuuna yidhi, dembiyada iyo shakiga igu dhacay ayaa igu keenay xaaladdan. Ayaa isbitaalka yimid wuxuuna yidhi, taliyaha waxaan rabaa inaan su'aalo weydiiyo wiilkaaga. Light wuu ogaa in tani ay tahay tijaabo wuxuuna iska dhigay wiil daacad ah. Kadib markii uu caafimaaday, Light wuxuu aqbalay inuu ku biiro kooxda baarista si uu uga qayb qaato. Laakiin gudaha maskaxdiisa wuxuu lahaa qorshe kale. Haddii aan gudaha tago, waxaan heli doonaa xogta oo dhan, waxaana noqdaa qofkoodii ugu awoodda badnaa. Maalmo kadib waxaa soo baxay dhacdo yaab leh. Warbaahinta ayaa sheegtay in ay heleen fariimo iyo cajalado uu diray Kira. Fariimahaas waxaa lagu amrayaa telefishinada inay si toos ah u sii daayaan, haddii kale waa la dili doonaa. Twiyadu waxay bilaabeen inay baahiyaan cod qarsoon oo leh, aniga ah Kira. Wuxuu yidhi, haddii aadan i rumaysan, fiiri kanaalka labaad, halkaas waxaad ka arki doontaa qof dhimanaya. Markii la beddelay kanaalka, dhab ahaantii ninkii soo jeedinayay barnaamijka wuu dhintay, wadne istaag. Booliiska waxay argagaxeen, mana fahmin sida Kira uu garanayo magacyadooda. Wuxuu is yidhi, tani waa mid kale. Waxaa jira qof kale oo leh buug kale. Waxaa la ogaaday in cajaladahan aysan ka imaan Kira dhabta ah, balse qof kale oo isku dayaya inuu isu ekaysiiyo Kira dhabta ah. Light wuu yaabay, qof kale ayaa isticmaalaya awooddiisa. Wuxuu ku talagalay in fariin cusub loo diro ninkaas labaad si loo ogaado cidda uu yahay. Fariintaas waxaa lagu yidhi, fariimihii hore aniga ma aanan dirin, waana been. Qofkaas waa beenaale. Dhowr maalmood kadib waxaa la ogaaday cidda fariimaha diraysay, gabar caan ah oo lagu magacaabo Misa. Misa waxay ahayd jilaa iyo moodal caan ah oo nolosheeda ku dhisan daacadnimo, laakiin leh xanuun qoto dheer. Misa qoyskeeda waxaa dilay dambiile, waxaana Kira dhab ah Light hore u dilay ninkii ka dambeeyey dilkaas. Sidaas darteed Misa waxay bilowday inay Kira u aragto badbaadiye. Maalintii dambe Misa waxay heshay buug kale oo Death Note ah oo uu iska lahaa Shinigami kale oo magaciisu yahay Rem. Rem waxay u sheegtay Misa sheeko murugo leh oo ah in Shinigami uu dhinto haddii uu bini'aadam badiyo waqtigiisa. Shinigami saaxiibkii Rem ayaa naftiisa u huray si uu u badbaadiyo Misa, wuxuuna u gudbiyey noloshiisa inteeda ka hartay. Kadibna Rem wuxuu buugga geeyey Misa si ay u yeelato awoodda Shinigami. Misa markaas waxay go'aansatay inay caawiso Kira oo ay u sheegto in iyaduna leedahay awoodda indhaha Shinigami. Waxay dirtay fariin qarsoon oo keliya qof haysta buugga uu fahmi karo. Fariintaas wuxuu helay Light. Maalinta xigtay, Misa waxay u timid Light si lama filaan ah, waxayna la kulantay isagoo waddada maraya.
markay aragtay waxay orod ugu tagtay iyadoo ku tiri aniga kaa helay fariinta waan ogahay adiga Kiira ah. Light wuu argagaxay balse markuu arkay indhaheeda wuu ogaaday inay run sheegtay. Mise waxay tiri indhaha Shinigami waxay ii muujiyeen in adiga magac buuxa lagugu qorin buugga. Taas ayaa caddayn u ah inaad adiga leh. Ryuk wuu yaabay wuxuuna yidhi xitaa anigu ma ogeyn in arrintan la garan karo. Mise waxay si degdeg ah ugu tiri Light wax kasta oo aad amarto waan ku samaynayaa. Waxayna isla markiiba u dhiibtay buuggeeda si uu arko. Markaas Light wuxuu arkay Shinigamigii Rem hortiisa taagan. Rem wuxuu yidhi anigu Mise ayaan ilaalinayaa. Haddii aad daawacdo aniga ku dili doona. Light wuu qoslay balse maskaxdiisa wuxuu bilaabay inuu qorshe cusub dejiyo. Haddii aan labada buug mideeyo awooddaas waa mid aan cidina iga qaadi karin. Mise waxay u dhiibtay buuggeeda waxayna ku tiri aniga iyo adiga waxaan noqonaynaa lamaanayaal cadaaladkeena. Light wuu ka faa'iidaystay kalsoonideeda wuxuuna qorsheeyay inuu adeegsado si uu u dilo El. Laakiin arrintu si ka duwan ayay u dhacday. Boolisku waxay ogaadeen caddayn ka tagtay Mise. Timo laga helay cajaladii ay dilaysay ayaa la falanqeeyey waxaana la ogaaday inay iyada tahay. Boolisku waxay go'aansadeen inay soo xiraan Mise iyadoo lagu eedeeyay inay tahay Kiira labaad. Mise waa la qabtay waxayna ku xireen qol adag oo madow ah gacmahana lagu xiray. Waxay codsatay in la dilo si ay u nasto laakiin Rem ma rabin inay aragto Mise oo dhimanaysa. Rem wuxuu u duulay Light si uu uga codsado inuu badbaadiyo Mise. Light wuxuu dejiyey qorshe cusub oo halis ah. Mise ha iska dayso lahaanshaha buugga. Markaas xusuusteeda waa la tirtirayaa booliiskuna ma helayaan wax caddayn ah. Mise way ogolaatay markaasna waxay ilowday wax kasta oo ku saabsan buugga. Light markaas wuxuu sameeyey tallaabo aan la filayn wuxuu isdhiibay. Wuxuu yidhi ma sii noolaan karo anigoo shaki ku jiro. Waxaa laga yaabaa inaan aniguba Kiira ahaa anigoo aan ogeyn. Tani waxay ahayd xeelad uu isagu dejiyey si uu u lumiyo xusuustiisa buugga. El wuxuu la yaabay tallaabadan wuxuuna aqbalay in Light lagu xiro si loo hubiyo. Laakiin mar dhow kadib si lama filaan ah dilalkii ayaa mar kale bilaabmay dadkii oo dhan way argagaxeen waxaana la is yidhi haddii Light xiran yahay yaa hadda dilaya.